Isku soo noqod wanaagsan. Waxaan maleynayaa marar badan in la isweydiinayo ilaah war ninka xaw ka baxay. Dad qaar hata ay soo qaribani horta nafta ma kugu jirtaa. Alxamdulillah nafta ugu jirtaa. Waana noolahay. Marka qaabkan wax soo gudbinayay aan xoogaa wax ka yar bedelay. Saas awgeed macnaha ay u suurtagelin inaan marar badan helno. Anigana xoogaa waxaan isku dayay inaan macnaha xoogaa cilmiga korodhsado. Xoogaa janitis ka qaato. Mar walba waxaa farq u dhexeeya nolosha caadiga iyo midda macnaha la soo bandhigo salaan YouTube inuu qof ku jiro inuu macnaha meel bulsho ka mid yahay inuu bulsho wax u soo gudbiyo ay sugayaan marka taasna waa shay aad u muhiim ah waan kaga mid celinayaa concern gareynaysa macnaha aad leedihiin ninka odayga horta waxa uu ka baxay tagta iyo ku tabaalir qofka markuu ka taga meel haddaan la tagin waa shay xun weey ma fiicin in la tago qofka fiican taasi xoogaa noloshana macna ku yeelanaysaa marka waxaan rabaa inaan dhowr qodob isdul taago channelka qaabka aan ka rabo inuu aado iyo sidii hore u ahaan jira haddii marka hore ku ogeyd inuu channelka marka hore ahaa in macnaha aan kusoo gudbiyo tips and tricks oo macnaha YouTube arrimaheeda hawlihii hore oo dee aan qaban jiray in macnaha mar walba dee shaashadeeda idinla wadaago oo idin dhammaan halkaan wax marayaan saan waxaan loo sameeyaa videoda qaabkan lacag looga sameeyaa arrimahan kalena lacag waa qaabkan looga sameeyaa inaan tan kor wax badan soo gudbin jiray in hadda xoogaha aan tii hore wax ka bedeli doono ma maleynayo in macnaha saameyn weyn ay yeelanayso balse waxay noqon doontaa umaynaa insha allahu tacaala shay muhiimadiisa leh oo waxaan xoog saari doonaa macnaha cilmiyo kale skills kaleta kulli waxaan umaynaa markii hadda uu channelka la soo geliyo in wax laga faa'iidi doono muhiimadda aan xoog saarayn waxaa wixii horta aan soo gudbinayo wax ma laga faa'iidaya shayga taasaa muhiim ah taasaan markaa mid dee channel ahaan oo Soomaali online money hadda ay u dhisan tahay in qofku uu soo gudbiyo wixii wax laga faa'iidayo wixii wax laga faa'iidayo waa tarbaqa sheeqayli iyo qayaali way taasna meel walba taala ninka taas raban dee maxaa weeye TikTok buuxdaa Facebook buuxdaa meel walba tuurinta waxa tarbaqa sheeqaysa marka muhiimadda waxaa weeye qofkina waqtigiisa lagu luminin mar walbana wixii saxda loo sheego waxaan aadi doonaa kulley meelo badan aan taaban doonaa cilmiyadii intaan inta maqnaa koorsooyin baan qaadanayay cilmiyaan xoogaha soo kororsanayay wixii aan soo kororsan lacagta kusoo bartaan rabo inaan free in kula wadaago hadday taas xoogaha micnaha ay aqli samaynayso at least ayo ma aha mar walba qofka micnaha inaad wax ka charge garaynaysid ama lacag ka qaadanaysid muhiim maahan laakiin horta in wax laga faa'iidaa fiican oo qofka berri markuu adduun ka tago dhaxal maxaa ka tagtay haba yaraadee rabto war dadka maxaa oga tagtay su'aasha isweydiinta waxaa weeye dadka waa ka tagtay maxaad oga tagtay marka taasaan xoog saari doonaa systemya jira aan dhisay kulley dhalinyarada aad u xiiseyso forex iyo waxyaalahaas xiiseyso systemya waxaa jiraan aan dhisay inta daan maqnaa coding programming language ayadana waqti waa baranayay in ayadana dhalinyarada uga faa'iiday waan rabaa waxaa kaloo jiro rabaa in dhalinyarada ayadana uga faa'iideeyo qaybta finance ayadana oo tusaale ahaan dhalinyaro badan hadda kambaniye ama shaqsi ahaan u shaqaysato ama kambaniye u shaqayso waxaana dhib lagu qaba macnaha xisaabihii systemkii shaqada macnaha la fududeeyo a lot of system aa jira la isticmaalo kuwa aad dhisan kartaa jiro oo inkastoo hata naftirkay aan maleynayo waxyaalaha qaar in dhalinyarada ay wada taqaano UC moogta mar qaar waxaa jiro waxaad arkay aad u malaynaysa in wax raqiis iyo caadi iska yihiin laakiin bulshada aysan weli ku baraarugsaneen dadka qaar ay aqoonin waayo dadka kombiyuutar ay wada isticmaalo badan yihiin laakiin isticmaalkooda iyo shaqadooda iyo qaabkooda ma yaqaanaan imagine qofka hadduu xataa dhisi kara ka hor system asaga u gooni ah tusaale ahaan qofka base wax ka dhisi karaa waxyaalaha lagu dhiso waxaa ka mid ah base laga dhiso in Excel wax ku dhistid coding xataa in wax ku dhistid oo macnaha system ahaan coding ku dhistid programming language ku dhistid Excel ku dhistid ama PowerPoint ku dhistid everything PowerPoint wax ku dhisi karaa laakiinse taas macnaha waxaa weeye dashboard waxaa lagu dhisi karaa حتى dashboardyadaas qofku xataa waxa weeye wuxuu saacidi karaa stock control inuu ku hagaajiyo hadduu dukaan leeyahay hadduu company u shaqeeyo companyga waxyaalaha systemyada isticmaalaan oo Excel waxaan ka wadaa QuickBook iyo bookkeeping iyo Tally balan dama hadda hindi aad looga isticmaalo dadka shaqooyinka waaweyn ragga waaweyn oo xisaabiyahan waaweyn ay ku xisaabtamaan oo xisaabaha ku xirtaan in xataa adiga wax soo kordhin kartid waayo waxaas base laga dhisaa basic hata inaad baran kartid qof arkaysa inuu system yar hataa system yar macnaha Excel ku samaysan inuu qofka macnaha let me say basic inuu ka dhisi karin ay marka waxaan iri wow warniyo arrintaas waa arrin jirto at least hal qof
hal qof ya, not many people, hal qof oo xogaha Excel handaad yara tusid ama qaab system loo dhiso aad tusid from the baseline bas, base hore bas aad ka tusid, ugu warintiisa qofkaas garab ay siin lahayd. Muhiim ah qof micnaha ilaa iyo how far uu gaarsiinayaa, xaguu la gaari karaa, qaabkee noqon kartaa, taas muhiim ah. Laakiin qofka inuu xogaha wixii yara barto, wixina garanayo oo inta micnaha xogaha tuso waa siri. Ayadana kulley cashiro badan kasoo diyaarin doonaa. Dhirtan inay cashirahaas fara badnaan doonaa, laakiinse cashiro ka kooban qaabka loo isticmaalo, sida loo dhiso, system ahaan si looga dhigo, dashboard si looga dhigo, automated aan ka dhigi karaa markaa waa automatic. Micnaha waxaan rabaa inaan ka dhigo barnaamij soo dhamaalo iska automatic ah oo qofka tusaale ahaan data entry hadduu yahana uu hor intuu u geliyo oo uga faa'iidaysan karo. Meel cidlaan iska joogaa ay kaleete ah oo meelaha cidlada waa iska jeclahay, waa magaalada iska banaankeeda weeyo. Qayri buuq malaha shimbir baa qaylina bas marka taasna marka waa ku fikiray inaan soo la soo wadaago insha Allah taala. Taasna waa goonideed. Waxaan ka rabaa ayadana kulley haddii xogaha dhalinyarada wax nolosha taabanayna life and relationship ayadana inta aniga micnaha experience inaan kasoo hadlana ayadana waan rabaa, oo ayadana field xogaha muddo badan research aan ku hayay, qisooyin badan aan ka hayo, xogaha cilmigeedana aan yara leeyahay. Rabaa dhalinyarada ayadana baraarujin iyo wacyigelin inaan nooga dhigo. Marka dhankaas kulley waa aadi doonaa haddii la yiraahdo. Haddii marka channelka marka hore aad ku ogeyd bas in qaabka YouTube bas ay tahay iyo online lacag looga sameeyo inay ahayd, hadda waa ka tegi doonaa. Horeyna waa usii socon doonaa waxyaalaha qaar oo micnaha nolosha saameynayo, nolosha taabanayo, maxaan ku irahdaa ilaahay kuma sama darnaadee real life-ka micnaha taabanayo ka hadli doonaa. Waxaan kaloo ka hadli doonaa haddii la yiraahdo financial, qofka micnaha xisaabihiisa iyo accounting hadduu qofka micnaha inuu barto rabo, waxyaalo badan xataa cilmigiisa inuu ziyaadinayo ayaan ka hadli doonaa. Aniga ka shaqsiyaanteyda anigii accountant aan ahay oo waxa weeye IT aan bartay, ina micnaha wixii aan aqaano qofka la wadaago, ilaahay kuma sama darnaadee. Relationship-kan ayadana waa ka hadli doonaa. Skills-ka ma iloobi doono, skills waa muhiim, skills muhiim waay. Future skills and the best skills kuwaas waa kuwa meesha adduunka socdo wey, meesha adduunka socdaan ka harayna maaha. Taasna xoog waa saaro doonaa insha Allah. Marka video waa video yar iska ahaa oo memory igu soo dhacnaan dhalinyarada bulshada baraarujiyo, dhalinyarada ugu xirna Soomaaliya online money si micnaha ay uga faa'iideystaan. Marka muuqaalada hoos kulley waxay noqon doonaa muuqaalo aad meelo badan xoog u saarayo. Kulley waxa weeye asarka doonaa.